amiiro ka tirsan al-shabaab oo lagu laayay duqeyn ka dhacday shabeellaha hoose. duqeyntan diyaaradaha loo adeegsaday waxaa iska kaashaday ciidanka xoogga dalka iyo saaxiibadooda caalamka, waxaana lagu dilay 3 horjooge oo ka tirsan al-shabaab. duqeynta oo dhacday xilligii afurka kadib talaadadii shalay ayaa waxaa lagu dilay 3daas xubnood tuulooyinka Tawakal iyo Ugunji oo hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. warkan oo laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidamada qalabka sida waxay sheegeen in howlgalka sidii loogu talagalay u dhacay. xubnahan ka tirsanaa al-shabaab ee duqeynta lagu dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Khalid Cabdullaahi oo ahaa madaxii canshuuraha ee deegaanada hanti wadaag ee gobolka Shabeellaha Hoose, iyo Macalin Yuusuf oo ka mid ahaa madaxda amniyaadka gobolka Shabeellaha Hoose. saraakiisha ayaa intaas ku daray sidoo kale duqeynta inay ku dhinteen 5 dagaalyahan oo amiiradaasi la dilay kula sugnaa deegaanada duqeynta laga fuliyay.